reerka la yiraahdo garax waxa loogu yimaadaaba in quraan iyo tawxiid iyo salaad ma qaano kilibkaasi aad buu u faafay marka hadii la idinku yaqaan xarunteedina la idin dhisay waxaan u maleynayaa insha Allah la idin tilmaami maayo masaajidkan aad xamiiri doontaan biidilaahi tabaaraka wa tacaala masjid hadii la dhiso muhiimadiisu waa in laga faa'iideysto waa in lagu cibaadeysto waxna lagu barto taana waa hawl idinka idin taala insha Allah tacaala taagaw oo rajeeyay insha Allah tacaala in ilaahay idinku anfici doono masjidkan markaan arkay waxaan idhi magaalada aad uma soo dhaxmarin laakiin suurada maskaxdayda ku jirta waxay ahayd inay magaalo yar tahay laakiin markaan arkay dadkeeda markaan arkay haddana waxaan idhi magaaladu ma yara haddana mar labaad baa waxaan idhi meeshaad joogto beesha degtay waa beesha Soomaalida ugu dhalmada badan waay ما شاء الله warka xayru waxa laga yaabaa familka Soomaaliya toban iyo dhowr iyo toban baa ka soo jeeda warka Ilaahay haydu barakeeyo jazakallahu khayran laana hadda meesha dadka fadhiya dhalinyaro u badan marka masjidkii caasimadku oo lilahawa ayaduna insha Allah waa caasimadna insha Allah taala way noqon doontaa biidilaahi tabaaraka wa taala marka Allah idin barakeeyo la idin tilmaami maayo wax masjidka loo dhisay muhiimadiisa hadii ka hor baanoo jooga xeelo meesha la yiraahdo Eldoret oo kelimo jeedinay ayaa waxaan idhi reerka la yiraahdo garax waxa loogu yimaadaaba in quraan iyo tawxiid iyo salaad ma qaano kilibkaasi aad buu u faafay marka hadii la idinku yaqaan xarunteedina la idin dhisay waxaan u maleynayaa insha Allah la idin tilmaami maayo masaajidkan aad xamiiri doontaan biidilaahi tabaaraka wa tacaala Allah idin barakeeyo warkuma badna khudbadan insha Allah ku gudan doona wixii kale ilaaba biidilaahi tabaaraka wa tacaala aad baad u mahadsantihiin wasiirkeena aadan waxaan leeyahay isaga waxa inta badan munaasabaadka iyo meelaha la isugu yimaado waana la amaanaa waana loo duceeyaa waa mudan yahay amaantuna waa dhiirigelin laakiin amaantu adduunkay ku hadhay amaantu macna weyn ma samayso laakiin wax sameeya waa raadku ka tagay maraakiistuu dhisay masaajiduu dhisay dacwadu ka qayb qaatay iyo ducada muslimiintu u ducaynaya intaas aan leenahay iyagana Allah ku aqbalo inta kale siyaasiyiinta ee wadanka madaxda ka ah muslimiinta ana waxaan leenahay insha Allah taala ku dayda waxa wanaagsan waa la isaga daydaa intaan aniga arkahay rag wadanka soo maray siyaasiyiinta ah nin diinta u dhaama iyo dacwada ma arag wuxuu mudan yahay marka in lagu daydo runtii khayrka waa la isaga daydaa madaxdeena kalena waxaan leenahay insha Allah taala idin ku daydo sidaas oo kale dacwada iyo diinta iyo ummadda horumarkeeda qaasada dhanka diinta إن شاء الله تعالى هلا جديدو جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.